السلام عليكم وين سلام دمانتين isku noqod wanaagsan Ramadan Mubarak meel walba wad caalamka joogtaan waxaan maanta wada joognaa arday cyber security ga barto oo aan filayo in su'aalihiina uu idin kaga jawaabo marka ugu hore ku soo dhawo channel Gamaandid haddii aan ku hormaro su'aasha ugu horeyso waa kuma Cabdixakiin bal sukaan sheeg aad baa u mahadsantahay Gamaandid Cabdixakiin waa wiil Soomaaliyeed ku nool Cyprus oo masterkiisa ku sameynayo management information system waxaan ahay arday ma aragtay aad u jecel cyber security ga waxaan soo galay sanad ka hor cyber security ga aniga ayaa isbaray walina waan baranayaa waxaan ahay qof wali junior laakiin wixii aan ku dhaamo waa in la wadaagi doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo waaye aad baa u mahadsantahay haddii aan su'aasha ugu horeyso aan u gudo galo su'aasha ugu horeyso waxay tahay basic requirements u baahan yahay si uu u bilaabo cyber security ama maxaa qofka looga baahan yahay markuu rabo inuu bilaabo cyber security ardayga cyber security horta haddii uu rabo inuu barto koow waa inuu u helanaada diyaar u ahaada xaqiiqdan waxay tahay like very challenging career way noqon kartaa oo ma aragtay caqabadooyin badan ka hor imaanayaan haddii aadan ahayn arday ama haddii aadan ahayn qof aanan jeclayn inuu ma aragtay challenges face gareeyo career-kan lagu matalagelin because cyber security ayadana ayaa waxay tahay like challenges in mar walba ay ka hor imaadaan maalin walbana wax cusub ayaad baranaysaa si aad u bilowdo cyber security laba qaab ayaan u kala qaadaynaa qaab formal education ama in aad degree bilowdo dhameyso dabadeedna aad bilowdo masterkaada xagga wixii ka dambeeyana aad saas takhasuskaadii mustaqbalkaadii career-kaada u sii fogeyso qaabka kale ayaa waxay tahay inaad adiga isbarto oo aad adiga internet iska barto ma aragtay like tools badan ma aragtay website-yaal badan meel badan oo wax laga barto ayaa jiro wadadaas aad marto ama school ma aragtay macallin aad qabsato ma aragtay saas informal ahaan aad u barato basic knowledge ka Kali Linux inaad taqaanid ama Linux inaad fahmi karto operating system kaas because hackerada waa systemka isticmaalaan networking kana waa inaad wax ka fahmi karto intaas ayaan isleeyahay way ardayga aas ay u tahay inuu cyber security bilaabo su'aasha xigta waxay tahay cyber security ga hadii noqoto degree masterkiisa meeqa sano camal ay qaadataa sida caadiga degree 4 sano waa sida caadiga dalalka badankood masterkana waa 2 sano marka ma isdhahayo cyber security special waayo waa ka yari ama waa ka badan yahay okay waa maasantahay su'aasha xigta waxay leedahay certification dabcan certification ayaa jiro oo shahaadooyin cyber security ga haddii aad nooga sheegtid kuwa basic ilaa kuwa professionalka oo qofka uu qaadan karo aad baa u mahadsan tahay su'aal aad muhiim u waayo ardayga si xirfadiisa uu ugu shaqeysto horta qasab ayaa waxay tahay inuu shahaado haysto shahaadooyinka like from meel hoose ilaa meel sare ay gaaraan lacagahoodana like isku mid maahan oo aad bay u kala qaalisan yihiin cyber security certificationada marka la dhahayana aad bay certificationada kala caalamka aga qaalisan tahay waxaa jirto arki kartaa xataa certification $7,000 cost garanayso aad qaali weey certificationada waxaan isleeyahay aaska ardayga hadduu certification networking uu qaato sida CCNA ama Computer Network Plus hadduu qaato waxa ugu xigi karo isleeyahay waxa waaye Security Plus ama CEH oo Certified Ethical Hacking ama Computer Security Plus waa aaska si xirfadda aad baratay shaqada ugu hesho labadaas ayaad u baahan tahay waa inaad mid haysataa dabadeed waad si kor u sii qaadi kartaa xirfadaada shahaadooyin qiimo leh oo aad u fiican waad sii raadsan kartaa oo ka mid tahay OSCP Offensive Security Certified Professional iyo shahaadooyin kale tirada ka badan aad baa mahadsantahay su'aasha xigta haddii aan u gudbo muddo intee laga qaataa qofka inuu noqdo hacker dhameystiran muddo cayiman ma jirto kow qofku waxay ku xiran tahay dadaalkiisa because haddii aan dhahno bil baad ku baran kartaa iyo sanad baad ku baran kartaa iyo 10 sanaad ku baran kartaa waa been aan ku sheegayo dadaalkaada ayay ku xiran tahay waa inaad waqti badan computerka dul fadhidaa waa in dhibaatooyin badan oo ka hor imaanay ama ma aragtay aad face gareynayso in aad ka dhaxbaxdaa cyber security challenges badan ayuu leeyahay marka waqti waxaan isleeyahay ugu yaraan 6 bilood haddii aad si toos ugu fadhido maalinkiina ugu yaraan
ugu yaraan 5 saacadood aad dul fadhido computerka iyo 4 saacadood waxaan is leeyahay from there like certificationada basic diyaar baad noqon kartaa inaad qaadato laakiin waqti cayiman oo kooban oo cyber security qofka uu ku noqon karo professional ama researcher uu ku noqon karo ama qof super senior uu noqon karo ma jirto maalin walba waa inaad xirfad cusub barataa maalin walba waa inaad computerka dul fadhidaa macnaheedu waxay tahay marka barashada cyber security ama haddii marba aad dhex gashid maba dhamaataba in maalin walba aad wax cusub sii baratid aqoontaada ay sii ziyaado waa dabcan saa u fahmin jawaabtaada sax aad iyo aad okay waa maqashaan oo filaya jawaabta su'aasha xigta haddii aan u jeedo galo qofka resources ama tools noocuu u baahan yahay markuu cyber security ga baranayo waa su'aal aad muhiim u ah cyber security horta haddii aan dhahno waa career maaragtay aad u ballaaran ardayga ama qofka raba inuu barto meel gooni ayuu ka geli karaa inuu noqdo blue teaming ama red teaming ama si kale haddii aan kugu sheego qofka noqdo qaab offensive ama maaragtay hacking ka sameynayo dadkii like ku xadgudbayo faraha la galay mashiinadii computeradii ama qof difaaco oo maaragtay defensive ka qaybta defensive ina barato qaybta defensive marka waa blue teaming qaybta offensive kana waa red teaming haddii markaas aan ka imaano meelo badan oo aad ka baran karto ayaa jirto waxaana ka mid ah try hack me aad baan u recommend gareynaa try hack me because waa meel aan isleeyahay qofka beginner markuu yahay starting from zero like ever uu ka bilaabayo sufur waa meel kusoo dhisayso challenges ku siinayso maaragtay macnaha hands on work ayaa sameynaysaa hawsha ayaad faraha la gelaysaa challenges ayaa lagu siinayaa haddaadan self garaynin horey uma soconayso try hack me aad ayaan recommend gareynayaa haddii aad tahay marka qof muuqaalada jecel inuu aad u daawado asoo muuqaalo daawanayo inuu wax barto rabo waxaan isleeyahay Udemy waa meel aad u wanaagsan oo aad ka baran karto koorsooyin badan ayaa laga helaa oo cyber security especially ethical hacking-ka labo waxaan isleeyahay TCM security website la dhaho bar aad ayuu ku anfacaya senior developer ama senior pen tester ayaa iskala sameeyay koorsooyin aad muhiim u ah ayay sameeyaan in fact shahaadooyin ayay bixiyaan oo shahaadooyinkooda aad ayay u fiican yihiin PMPT shahaado la dhahayo bixiyaa shahaadaasna shahaado waxa waa very practical I think aad qaali uma ahan $300 $250 waxaa kaloo jirto hack the box oo CTFO sameeyo ama capture the flags haddii maaragtay basic aad ka yara kacdo si dhacdooyinka ama maaragtay adduunka wax ka jiro aad ula falgasho hack the box aad ayuu ku caawinayaa Pico CTF ayaa jiro Pico CTF beginner based waayo saan isleeyahay because qaybo adag way leeyihiin laakiin markii aad bilaabayso beginner waayo waana CTF capture the flag waxaa kaloo meesha aan ka marmeyn oo isleeyahay aad bay qofku u caawinaysaa YouTube oo halka aad naga daawanaysa hadeertaan resources badan ayaad ka helaysaa guide badan ayaad ka helaysaa iyo maaragtay garab istaag badan YouTube kana waa meel aad muhiim ah oo isleeyahay way ku anfacaysaa su'aasha xigta hacking horta wax fudud ba mise wax adag in la barto su'aasha dan kaaga jawaabo horta waxaa jirta fikrad aan aaminsanahay adduunka wax adagna ma jiraan wax fududna ma jiraan taas wax xaqiiqo dhab ah because wax walba waqti aad galiso ayaad ka helaysaa like outcome ka helaysid waxa suureynayo waqti aad galiso cyber security ga saan hore soo sheegnay tusaale dhinaca pen testing ka ama maaragtay offensive ka ayaad u baxday waa inaad maalin walba computerka dul fadhidaa waa in maalin walba wax cusub aad barataa wax cusub aad faa'iidaa marka in short waxaan ku leeyahay mana adko mana fududo waqtiga aad gelisa ay ku xiran tahay waana aad u mahadsan tahay su'aasha xigta waxay tahay oo ah mid ugu dambaysa talada aad siinaysa maxay tahay qofka raba inuu cyber security ku soo biiro ama inuu barto rabo talada maxay aad siinaysaa talo hadii la dhaho ardayga waxaan isleeyahay talada ugu wanaagsan oo ugu habboon oo isdhihi karo qof fieldigan hadda soo join galeen rabo ama already ku jiro islahay macnaha like horumarka sii gaar aniga camal because waan ku jira horumar weyn like ma gaarin oo waan hiigsanaya waxa waayo hadaalin oo isdiibin because cyber security ga xaqiiqada jirta waxay tahay aad u caqabada badan yahay waana very macnaha rewarding job waayo rewarding job waxaan u leeyahay waxa waayo haddii aad jeceshahay inaad solve garayso challenges dhaqaale fiican waad ka soo xareynaysaa taas waa xaqiiqi jirto because waa shaqooyinka adduunka macnaha maanta dadka
ay yar yihiin xirfadaas bartay shaqooyinkana ay badan yihiin waa qiimeyn kartaa marka dadkii baa yar shaqooyinkii ayaa badan so like haddii aad junior tahay base levelka aad ku galayso shaqo lacagta aad qaadanaysa ayaa waxay noqonaysaa 6 figures 100,000 ka yar ma qaadanaysid waa base levelka senior markaa noqotana although 6 figures ay tahay 250,000 gaaraysaa waa shaqooyinka mar walba suuqooda uusan bixinin uusan tagaynin marka waxaan ku leeyahay haddii aad tahay arday cyber security kusoo biiri rabo aad baan kugu soo dhaweynaynaa hadaalin waa isdhiibin dhibaatooyin badan waad la kulmaysaa caqabadooyin badan waa arkaysaa challenges badan waa face garanaysaa hore u soco wixii kugu istaago google ayaa jirta weydi aad bay ku caawinaysaa github ayaad ka helaysaa garab istaagi caawinaad fiican marka all in all kusoo dhawo cyber security aad jeceshahay baratid aad baan kugu soo dhaweynayaa aad u mahadsantahay Mr. Bin su-aashii ugu dambaysa waxay tahay in kusoo gabagabeynayno haddii jiraan dad arday ah oo raba inay bartaan ama jeclaan lahaa inay wax ka weydiiyaan su'aalo meel ay kala soo xiriirayaan ma jirtaa oo lagala soo xiriiri karo waa jirtaa because waxaan isleeyahay maanta social media qof walba waa ku jira halkaas waad igala soo xiriiri kartaan YouTube channel aan leeyahay waa jira I love storytelling horta daa idin sheego marka YouTube waxaa jiro aan kusoo gudbiyo sheekooyinka iyo qisooyin waxaa kaloo jirto Facebook aad igala soo xiriiri kartaa Instagram aad baa u mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii halkan aad soo gaartay waa ku mahadsantahay haddii channelka weli aad subscribe saarneen fadlan subscribe saaro gambareelkana furo si muuqaalada aan soo dhigo halkan ay kuu soo gaaraan hadday tahay markaadii kugu horeysay soo dhawo gacmo furan haddii hore noola joogtayna waa ku mahadsantahay sida aad noola socotay muuqaalka like saar si uu dad badan u gaaro asxaabtaada noola share garay wixii fikri farin aad noolaysidna qaybta commentiga nagula wadaag haddii ninkan aad rabtaan inaad su'aalo weydiisana Instagram-kiisana description-ka ayaan soo dhigi doonaa halkaas ay kala xiriiri doontaan sidoo kale YouTube channel-kiisana hoos ayaan soo dhigi doonaa description-ka waxaan filayaa inaad subscribe u saari doontaan aadna ku xirnaan doontaan aad baa u mahadsantihiin sidoo kale aad baa u mahadsantahay Mr. Cabdixakiin Maxamuud Cilmi Mr. Bin waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan intaan kulmayno muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay Ramadaan Mubaarak nabadiyo